wuxuu ahaa kii ugu xoogganaa ee muddo kadib ka dhaca magaalada, taasi ayaana keenaysa in aan tirada dadka dhintay la cayimi karin. xilliga qarax u dhacaya ayaa ahayd waqtiga ugu mashquulka badan isgoyska Soobe, waxaana gaariga qarxay oo nuuciisu ahaa TM sida dad goobjoogayaal ah ay xaqiijiyeen uu sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur dhismo. dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay tiradooda waa ay kordhi kartaa daqiiqad ka dambaysa. sababtuna waxay tahay qaraxa oo goobta uu ka dhacay ay ahayd goob aad u mashquul badan. waxaa weli dadka qaar laga baadigoobaya dhismayaasha hoostooda, kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku hoos jiraan. dhismayaasha qaar ayaa weli gubanaya, inkasta oo kooxda baktijisa dabku dadaal dheer ugu jiraan sidii ay u damin lahaayeen. anigu Cabdullaahi Cabdi ayaa la yiraahaa insha Allah ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim. ilaahay baa ila soo kulmi meeshan oo maasha Allah moodka la kala qaadayo. maasha Allah dadka taqaatiirta wax ka qaadan ku jira. maasha Allah waa doon moodkii wax waa kala dadalnay. haddana qaarkiisa moodka meesha ku jira ilaa hadda tawakkal aad arkaysa lagu ku dhex jira moodka. wallaahi waxaan qaaday marka ilaahay ka cabsoodo waa dhan tahay 18 waa qaaday oo mood ah. dhaawacana iska badaaf ma sheegi karo taas. dhismayaashan qaarkood dad shacaba ayaa ka dhex qaylinaya, kuwaas oo lagu howlan yahay sidii looga soo saari lahaa gidaaradan hoostooda. aniga waxaan watay mooto bajaaj, waxaan soo marayay markaaseetay waxaan ka imaaday dhinacan Banaadir, isgooska Zoobe aan soo gaaray. isgooska Zoobe mar alaal markii aan ka baxay aan galay jiiradka aadan cadde qaraxii uu dhacay. markuu dhacay isla markii bajaajka waxa soo baakintay gurigayga hortiisa, waa soo orday ambeenadii aan soo orday waxaan arkay isbitaal aadan cadde oo galaayo nin caloosha ka baxsan iyo nin goofanaha ka foqsan iyo gabar madax halaas ka foqsan. waa soo orday halkaana imaaday si calool xumee ayaan meesha ku arkay, calool kaliya iyo madax kaliya iyo gacan kaliya oo tuuran laamigan Zoobe. maanta dhibaatada meeshan ka dhacday xamar waa tii sida aniga aan isleeyahay ummadana ay la qabaan, waa tii ugu xumeedo aad iyo aad tan mid la mid ah inay dhacday uma maleynay. goobaha caafimaadka ayaa la gaarsiiyey tiro ka badan 20 qof, kuwaas oo dhaawacyo culus ay soo gaareen. waxaa ka mid ah isbitaalka Daarushifa. maxamed Cabbaas Cismaan ayaa ka waramaya tirada dhaawac iyo dhimasho ee isbitaalka la keenay. dhaawacyadana soo gaaray tiradooda waxay dhayihiin ilaa 32 qofood iyo hal qof oo meed meesha lagu keenay. waxaan rajaynaynaa 32 qofood in dhakhaatiirta hadda ay la tacaalayaan, qaarna xaaladoodu way fududahay way fiican tahay, hadda way socdaan oo isbitaalka lagu wada oo baxayaan. wasiirka amniga, saraakiisha ciidamada iyo gudoomiyaha gobolka oo goobta yimid midna lama aanu hadlin warbaahinta. Munassar Maxamed Cabdi, Universal TV, Muqdisho.